Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu wareysi kula yeelan doono ururka dhalinyarada SYL oo isagu ka jira xerada qaxoontiga ee Kakuma. 1991 ayaa ahayd markii dad Soomaaliyeed ay ka soo carareen dagaaladii naafeeyay gudaha wadanka Soomaaliya oo ay soo galeen xeryaha qaxoontiga ee ku yaala wadanka Kenya. siyaabo kala duwan ay dhalinyaradaasi waqtigoodii ugu qaateen xeryahaasi iyagoo waliba isha ku hayay xaaladda ama isbedel ka socda wadanka Soomaaliya oo maalinta ka dambaysa ay dhagahoodu maqlayeen arrin ay ka naxaan. laakiin hadda waxaa muuqatay dadiilo dowladnimo oo iyadu hadda laga yaabo inay u daafurto dadka Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan dhalinyarada iyagu wax ku bartay xeryaha qaxoontiga inay dib ugu laabtaan wadanka Soomaaliya. barnaamijkeenan waxaanu ku lafaguri doonaa bal xaaladda ay ku sugan yihiin guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu ku sugan xerada qaxoontiga ee Kakuma. waxaa dhinacayga fadhiya Faysal Saciid Xaaji oo isagu ah gudoomiyaha dhalinyarada ururka SYL ee ka jira xerada Kakuma iyo waliba maamulka sare ee ururkaasi oo iyaguna barnaamijkan nagala qayb qaadan doona. ugu horeyn ku soo dhawaada telefishinka Somali Channel. aan ku hormaro Faysal adiga marka hore waxaad noo qeexdaa guud ahaan fursadan aad maanta u hesheen warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan telefishinka Somali Channel. bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u waqsantahay Mr. Ibrahim. waxaan horantii u mahad celinayaa telefishinka caalamiga Somali Channel oo fursadan qaaliga ah na siiyay. aad baan u mahad celinayaa iyo dhammaan shaqaalaha Somali Channel janiska na siiyay. mid kale xigta waa janis aad iyo aad u muhiimsan aan macnaha anaga dhalinyarada xerada Kakuma janiskan oo kale weligeena ma aanan arag in idaacad micna ay noo imaato mise idaacad aan imaano namarti qaato oo soo dhaweyntaan aad iyo aad u weyn anasiisa waa markii inoogu horeysay ma garan karna caawo macna waxaan ku hadalno aad baan ugu faraxsanahay waa markii inoogu horeysay. waad mahadsantahay Faysal. waa ognahay macnaheedu xerada qaxoontiga ee Kakuma waxa ku nool dad badan oo Soomaaliyeed isla markaana warbaahintu kama howlgasho gudaha xeradaasi oo hadda xiriir laba kale waxa way wariyaal ba inta badan waxay ka soo tabiyaan xaaladaha kala duwan ee isbedelada ka jira xerada dhadhaab oo kale maxaa talo adkeeyay hadda baad leedahay xerada Kakuma inay yeelan weydo warbaahin ku xirta Soomaalida inteeda kale. xaqiiqatan marka la isku fiiriyo xerooyinka dhadhaab iyo xaqdheer ifo way naga horeeyaan dhanka idaacadaha marka lagu fiiriyo maxaa yeelay anaga Kakuma hadda idaacad joogto oo base ku ah malahan oo wararkeena soo togisa dhibaatooyinkeena aan macna dhibaatooyinka sida exaata soo qaadana dhalinyarada macnaha dhibaatooyinka haysata macnaha wax idaacad soo gudbisa ma haysano. laakiin markaan aan idaacadaha dhageysano waxaan maqlaa iyadoo laga hadlaayo xaga dheer dhaadhaabiyo wax Kakuma ma maqalna badanaa. laakiin aad baan ugu faraxsanaan lahayn haddaan heli idaacad markaas oo base ku lah xerada Kakuma oo ida wararkeena soo gudbisa aad baan ugu faraxsanaan lahayn haddaan heli lahayn. okay haddii aynu su'aasheena ugu horeysa ku daafurano bal waxaad warbixin yar oo kooban naga siisaa anagoo u gudbi doonaa qaybaha kale martida barnaamijka nagula bal waxbarashada iyo heerarkii ay soo martay dhalinyaradii iyagu janiska oo helay inay waqtiga ku qaataan xerada qaxoontiga ee Kakuma waqtiga bilaabatay iyo heerarkii ay soo martay adoo noo soo koobaya. aad baad mahadsantahay Ibrahim. xerada Kakuma horta loo socono waa xero aad u weyn. xeradaasi muddo furnaan jirtay. Soomaalida ugu horeysay ee xerada Kakuma waxay soo degeen 1994 ilaa 95 waa dadka ugu horeeyay oo laga soo dadkuriyay xerooyinkii Tanga Banadiri Mombasa dhinaca ku yeeleen. xerada marka ugu horeeyay la soo degay waxay ahayd meel iska ever desert ah oo boorkeeda siigadeeda iska kacada oo marka aan dhisnayn baheed aday dhibaatooyin badan oo fara badan baan kala kulanay. kadib ma sha Allah Ilaahay baan ugu gargaaray meesha waa la qabsanay waa degnay saan u degnay qolo waxaan la soo degnay oo Suudaan ay dhahaano culture kala duwan aan isfahmaynin waxay nagu soo horiyeen Itoobiyaanka iyo Suudaan ay nagu soo horeysay xerada iska dhex joogeen. Soomaalidu waa imaanay alxamdulillah laakiin kadib isfahan la'aan ayadoo ka dhacday Soomaalida Suudaan laakiin waxaan isku daynay macnaha isku fahmi lahayn inkastoo dhibaatooyin fara badan ay ka dhaceen waxbaana laga dilay waa dagaalanay waxna waa laga dilay anagana waa dadaalnay maadaama nalaga badnaa marka anaga ugu yareen kadib inta muddo aan joognay iskuuladii Soomaalida way ka baqi jireen dhalinyaradeenna maxaa yeelay iskuulada qofka dhalinyarada markuu aado waa lagu soo garaaci jiray
dhanka waxbarashada dhibaatooyin badan kala kulanay in iskuulka ardaydii la soo garaaco taasi waxay sababtay xitaa maamooyinka inay iska dhahaan haddii maadaama lagu soo garaaco iskuulka iskaga joog haddii halka wiil Soomaali ah oo lagu garaaco intaasoo Suudaan ay garaacayso adiga aad ka hadli karin taasi waxay keentay dhibaato in macnaha guriga iska dhex fadhino waxbarasho la'aan iska joogno magaalada iska dhex wareegno adiga kadib muddo markii joogtay Soomaalida qaar way dadaalay inta dhibaatada iyo wixii aan u samirnay waa soconay waxbarashadii ma sha Allah Ilaahay baan laga garab galay qaarkiina adiga high school ku dhameeyeen qaarna waxay ku dhameeyeen dugsi dhexe hoose ku dhameeyeen qaarna waxaan helnay program waxay noo imaaday ay dhahaan scholarship noo imaadeen in yar baan ka helnay Soomaalida marka uma badneen laakiin qaar yar ka heleen oo adiga wax faro lagu la xisaabi kara aan saasa u badneen aan ku helnay kadib Soomaalida way soo badatay Soomaalida aad bay u soo badatay sanadii ugu dambeeyay bay soo bateen taasi ay sababtay in macnaha qoladii halka marka deganayeen in dib loo celiyo waa qolada Suudaan dib repatriation oo lagu celiyay meesha waxa ku soo badatay Soomaalida marka anaga waxaan noqonay majority ku noqonay dhalinyarada Soomaaliyeed ما شاء الله الحمد لله وحان لا وما هذنينا مركان majority noqonay waxaan dareennay in macnaha meel marka ku badantihiin aad awood dheeri aad ku leedihiin aad waa dadaalnay marka urur ahaan waa dadaalnay ururkeena inaan xafiisadii aan la kulanno aan ka dhaadhicino inaan xirada anaga ugu badannahay iyo scholarship-da marka soo baxa jaanisada in macnaha anaga loo badiyo maadaama qolooyinkii hore ugu horeeyay la siin jiray jaanisada dhowr jeer maan la kulanay UNHCR oo deeqda waxbarashada markaas bixisa hay'adihii implementing agencies waa la kulanay in macnaha jaanisada ay noo siiyaan badana maadaama anaga aan ugu badannahay qaarkoodii marka aad la kulantid xafiis waxba ku cusubtid waxa lagu leeyahay you are accepted waxaaga waan aqbalay laakiin markii wixii aqbaleen ilaa hadda macnaha wax isbedel hadda aan aragnay ma jirto maxaa yeelay taasi waxa tusaale waxa jirtay dhalinyaro fara badan oo iskuulaha ku dhameeyay iyo qaar ku dhameeyeen Nairobi oo scholarship oo halkan dugsi sare ku dhameeyeen markii shahaadadooda xagga ila aadeen waxaan aragnay marar xitaa ay noogu dhaheen UNHCR shahaadooyinka ay wadataan waxba kama jiraan waa mid oo fake mise waa forgery oo taasi aan dood aan ka sameynay ilaa heer ay gaartay arinta UN Nairobi ay ka imaadaan xirada aan la shirnay shahaadooyinkii haday fake yihiin waxaan diyaar u nahay in la xiro haddii macnaha waxay jirtay in laga soo garbaxo maadaama maxaa yeelay wax sharcigaaga haddii lagu tilmaamo forgery waxaa noqonaysaa isbedel oo intaas sana adiga aad u rafaadisay boorka ku dhex jirtay siigada qoraxda qodaxda dhibka gaajo wax ku soo baratay haddana bari lagu dhaho shahaadadaada ma jirto waa dhibaato marka waxay isku barbar dhigeen dhibaatada marka anaga hadda badana dhibaato dhalinyarada haysta waxay tahay dhalinyarada Suudaan waxay wax ka bartaan tuulooyinka halkaan Kitale Eldoret wax ka bartaan laakiin anaga Soomaalida u samirnaa xeradan ku baranaa in dhibcihi markaasi aan helno waxaan aad u jeclaan lahayn in hay'adaha ay noo tixgeliyaan maxaa yeelay anaga meesha kama bixin xeradeen dhex joognaa awoodna markaas ma hayno aan والله إيمانه سيدا إلدوريد إمسيتولوي مقالوين كلام إيمانه أنا حاجة برانو أود أسمعين هاي مركز تاسيح إنه وصوبت دبعتي معنا إنه كنتو دبعينا ير قف كي مركو حالك سنة كده اللي راح سكول سود مية فم فور مية دبعها غير لأنه الله راح سكولاشيب جامعات مهيل كرتين إنه يقول إسكفر ديو شقادي مركو عصدنا شقادي إنه dhibaato waxa ka haysata dadka la ka sareeya boosashinada fiican la masiyo asagoo fofoof soo dhameeyo waxaad arkaysaa nin markaas dugsi sare aan soo dhameyn oo qabaa'ilada kala oo boosashinka fiican haysta laakiin ninka Soomaaliga waa hooseeya okay waa soo noqon doonaa in fursadaha shaqo ee waxaan siinayaa in Mukhtaar maxaad ku daraysaa adoo carqabadaha waxbarashada iyo waliba sidii dhalinyarada ka kuma joogta ay wax ku barato in maxaad ka xusi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore meena waxaan mahad u naqayaa TV-ga caalamiga ee Somali Channel aad iyo aad u mahadsan yihiin soo dhaweynta wanaagsan ee soo dhaweeyeen marka labaad haddii aan ka hadlo kolley intii badan walaalkii Faisal ayaa sheegay laakiin aniga waxaan ahay nin isagoo oo yarka ku soo galay inkastoo ay ahayd qaxootiga labada ka kuma soo galo waxaan meesha soo galay 1995 July 15 كوزا بقول لي شنو سجاشنكي وحنا هنير مركز وحنا إسكول كبلا وي سجاشني لحدي كوزا بقول سجاشني لحدي كلاس 1 challenge بدن إيو اللي بعتب بدن ومعنا حاجة معنا حرادة وحسوية مدد بدن وكل الدول
oo dunida dacladeeda kasoo wada qaxay Soomaali kaliya ahayn inkastoo micnaha markaas anaga aan joognay meesha waxaa dhacday in meeshan looga badnaa waqtigaas qaxootigii Soomaaliya ugu horeeyay adiga hal baa lagu horeeyay aan jecelahay waxaan ahaa rakaabkii labaad in ahayn dhibaatooyin badan oo kala soo kulanay laakiin alxamdulillah waa laga soo gudbay hadda in laga soo gudbay muddo markii micnaha waqtiyadii dambe la soo gaday oo Soomaalidii inta dambe ay soo gashay 1997 98 Soomaalidii waxoogaa population-keedu iska soo batay dadkii indhaha u kala furmeen iskooladii Soomaalida micnaha la qabsanay waxa waaye markii taas laga soo tago xagga sportiska dhibaatooyin badan baan ka qabnay garoomada waxa waaye waa lagu ciiri jiray waxa waaye wax walba population-ka lagu qaybsan jiray anagana waxa population-keena population yar waxa jirto dad Suudaan loo sidoo Faisal sheegay oo meesha nooga badnaa waqtigaas in anaga oo ciyaar noo socoto inay micnaha garoonka inta looga imaado laga joojiyo goonigii oo meeshaas loo kala kaxeeyo adigu xalqabadii wixii sii socday waxaa dhacday waqti in micnaha dadkii Suudaanta hagada loo celiyo oo qaxooti kale oo Soomaali ah boosaskooda ay soo kabaan oo hadda xeradii Kaakumo ay u soo bateen Soomaali dad anaga micnaha meeshii aan u joognay oo anaga aan ka soo horeynay dad micnaha naga dhibaato badan maadaama micnaha meeshii adiga in badan aad joogtay anaga meeshaas indhii waa noogu furmeen iskooladii dugsi hoose iyo dugsi dhexe waa ku dhameynay xitaa aniga dhinaca sportiska waa ka soo shaqeeyay youth and culture waa ka soo shaqeeyay waxaan ku soo shaqeeyay voluntary lacag la'aan si micnaha dadkayga Soomaali aan wax ugu qabto anigoo wax mushaahar aan qaadanaynin 3 bilood markaan soo shaqeynay ayaa waxa la ii bilaabay wax incentive la dhaho oo micnaha ah inay 3,000 iyo 4,000 oo ah saabuuntaada iyo waxaaga ah in muddo ayaan ka soo shaqeynay intaas waxa dhacday aniga iyo dhalinyarada walaalahay inaan koob bilaabnay dadkii meesha aan ku soo dhaweynay dhalinyaradii iyo micnaha dadkii noo imaaday waqtiga dambe inay koob aan furnay in micnaha dhaqankii iyo meeshii aan tusnay inaan soo dhaweynay si fiican aan soo dhaweynay iyo micnaha sida dhaqamada meesha ka jira iyo sida indhaha inaan u kala furnay walaalahayna Soomaali ee meeshaas noogu yimid intaas aad baad u mahadsantahay Mukhtaar waxaan u gudbinaa Deeq Xuseen Bulxan Deeq bal waxaan ku guuday jirnaa in barnaamijkeena aan kaga hadlaynay in xaaladda guud in xaaladda qaxootiga Kaakuma in doorka waxbarashada dhalinta ku nool Kaakuma iyo bal aragtidaada adiga ku aadan waxbarashada bismillahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo TV-ga Somali Channel runtii na siiyay fursadan aadna ma aragtay ugu howlan soo gudbinta fariimaha ku saabsan arrimaha bulshada siiba dhalinyarada mahadnaqaas kadib runtii mawduuca waxbarashada caqabadaha jira iyo fursadaha iyo xaaladda guud runtii waa arrin aad u ballaaran qodobadii intii ma aragtay muhiimka ahaydna waxaa soo sheegay asxaabteedii kale runtii caqabado badan ayaa jira maaragtay oo ku saabsan waxbarashada dhalinta joogta Kaakuma sida maaragtay inay drop out sameeyaan oo ay ka haraan waxbarashadii sababahaas waxaa ka mid ah waxa inuu dhaco maaragtay reerkii oo kale ay soo guuraan markay meesha ka dhacaan maaragtay xaalado adag sida colaado ama dabo kale ka kaco waxaa kaloo dhacda in ay ka tagaan waxbarashadii oo maaragtay meel dhexe u marayso sababo la xiriira reerkii inay dhoofayaan oo dib u dejin ay helayaan iyo qaarkood oo runtii ka hara iyagoo sababahaasba aysan jirin marka caqabadahaas ayaa jira aad baad u mahadsantahay waxaan u gudbaynaa Cabdi Saciid Samatar in Cabdi adigu bal aragtidaada iyo intii meesha aad joogtay iyo bal in dhalinta Soomaaliyeed in waxbarashadoodu intay gaarsiisan tahay in sidayna uga faa'iideystaan dhinacyo badan oo taabanaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacadeedu waa Abdulqaadir Saciid Cali oo magac dheer Shaba aad baa u mahadsantahay muxuu ahaa wariye Ibrahim cameraman
saaxiibaday oo caawa aad baan u faraxsanahay maadaama aan Nairobi wada joogno in badan qaxooti ku wada jirnay alxamdulillah aniga in badan baa qaxooti joogay 1991 Kenya soo galay qaxootiga muxuu ahaa Tanga kadib Banaadiri baan joogay Banaadiri 1997 kadib waxaan galnay qaxootiga Kakuma dhib badan baan la kulannay xagga waxbarashada koow waxa ah waxbarashadii iskuuladii naga buuxsamay maadaama muxuu ahaa dad badan naga soo horeeyeen Suudaan iyo muxuu ahaa Eritrean iyo Ethiopian meesha degnaayeen qaxootiga janiskii anaga waxbarashada u helnayno aad u yaraatay maadaama galaasadii aad u buuxaan oo lagu dhahay muxuu ahaa ilaa sanadka dambe ama qaar la yiri iska laabto guriga ku laabta sidaas bay wuxuu ku dhacday muxuu drop up oo dhalinyaradii sidii waxbarashadii xoogaa in u dhacday tan kale waxa weeye climate-ki meeshaan la qabsan weynay meel waxaan ka soo tagnay Mombasa la yiraahdo oo muxuu ahaa climate-ka aad u kulul sida Soomaaliya ah Kakuma markaa imaanay qoraxdii zaaid bay noo kulleed kadib muxuu ahaa waxbarashadii waxa ka horeeyay markaa meeshaan la soo dejiyay waxay meel muxuu ahaa banaan ah oo cidla ah ayaan la soo dejiyay kadib waxaan u qaadatay reerkii baa waxa u baahan in loo shaqeeyo qaarkood waxaan galnay biyo dhaamis kadib alxamdulillah in badan baa waalidkeen aad bay u dadaaleen kadib iskuuladii sidii waxaan u galnay muxuu ahaa primarygii dhalinyaro badan waa jirto dadaalay wax badan oo iskuuladii meel fiican ka gaaray gabdhaha qaybta gabdhaha markaa dhaano gabdhihii aad bay u dadaaleen aad bay u wanaagsanaayeen xogaa dhib waxaa kasoo gaaray oo muxuu ahaa qowmiyadaha kale isfahankii oo maaragtay xagga diinta xagga dhaqanka dadkii Suudaanta ahaa Ethiopiankii xogaa challenge baa meesha naga soo gaaray laakiin kadib alxamdulillah waan isfahanay Suudaantii iyo kuwii Ethiopiankii iyo dadka ajnabiga ahaa muxuu ahaa waxbarashadina si fiican baa loo sameeyay kadib qaar mar challenge kale ayaa jirna soo gaaray dab kamid ah mar kamid ah qaxootiga xerada Kakuma laba goor gubatay kadib iskuuladii hoos u dhaceen buugii dhalinyaradii iyo gabdhihii iskuulada dhigan jiray guriyihii maadaama ay gubteen buugii iyo wixii wax ku baran jireen markaas ay ku waayeen okay aad baad u mahadsan tahay waxaan siinayaa Maxamed Yuusuf adigu aragtidaada bal caqabadaha waxbarashada inta badan ka hortaagan dhalinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerada Kakuma bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa Maxamed Yuusuf oo ah dhalinyarta ama vice chairman ka dhalinyarta Kakuma wallahi hore arrimo badan baa iska jiro xagga waxbarashada inkastoo maaragtay challenge-yada iyo maaragtay howlaha ay si aad u fara badan yihiin mana dhihi karno wallahi dhalinyarta mataqaanaa inkastoo challenge ay jirto aad u fara badan in yar maaragtay boqolkiiba adiga 10 xataa ma dhihi karno ilaa 8 baa iska drop out oo siyaabo kala duwan u sameysay laakiin inta badan dhalinyarta waa dadaaleen taasoo kaliftay in maaragtay dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo hadda aan wada hilmaamnay ay mataqaanaa scholarship wadamada adduunka ay u kala aadeen sida Europe oo mataqaanaa North America ilaa Australia wallahi challenge-yada waa iska soo badnaa wax Kakuma kaliya ku ekaamaan ilaa iyo mataqaanaa Tanga waan ilaa 20 anagoo ciyaal yar oo 4 sano jiro 5 sano jiro soo galnay adigoo iskoolkii primary meel dhex ku maraayo baa mataqaanaa kaamkii waa la xirayaa leeyahay budgetkii anaga dhamaadiyo wadankiina baa nabad soo noqon rabo iska laabta kabacdi 2 sano delay kugu dhacayo waa soo baxaysaa oo kaam kale hadana mataqaanaa lagu soo gudbinaa wadankii markuu wali dhibaatadii sidii iska sii tahay haddana kaamkii kale markaad joogtid baa haddana dhibaatooyin kale iska dhacayo oo haddana waxbarashada meel dhex ku marayso haddana waxaa leeyahay kaamka la ka bedelo kaam kale aada mataqaanaa waa xireenaa Soomaaliya nabad ka soo socotaayo waa iska wadankiina iska aada waa soo baxnay haddana Kakuma imaanay haddana ayadana dhileetiye kale reerkii waa dadka inay degaan qaxooti cusub cimilo cusub iyo mataqaanaa jawi aad u kala duwan ayadana haddana sanado kale maaragtay ilaa 3 sano 4 sano adoo mataqaanaa sii weynaatay xataa primarygina u dhigatid oo qalbi baa haddana iska sii dhiganaysaa kabacdi haddana iskoolada meesha ku yaalay haddana aan degayno ama aan dhiganayno iskoolana lagu talagalay aniga ma ahayn qowmiyadihii meesha naga soo horeeyay sida Great Lake dadka mataqaanaa Rwanda Burundi Uganda dadka imaaday iyo ilaa Suudaanta Ethiopiaanka mataqaanaa iskooladii loogu talagalay anigoo meel fogna la dejiyo loo xaaray inaan meelihii ugu soo lugaysid iskooladii waa ka buuxaan dhulka iska fadhiista wallahi challenge badan dhalinyarta ma la aadeen karo maaragtay iskoolada iska drop out gareeyaan inkastoo in badan waalidiintood maaragtay ay dhabarka ka riixeen iskooladii maaragtay intay high school ka dhameeyeen primary dhameeyeen kabacdina waa iska garan kartaa Ibrahim markii maaragtay dhalinyarta la dhaho imtixaan hala galo ama scholarship wax iska yaro maaragtay boqolkiiba 5 iska ah marka waa la dadaalayaa 5 waxa la qaadanayaa intii maaragtay ugu fiican laakiin intaas ugu fiican lama dhigi karo in kale faad badan baa meesha joogto high school dhameeyay qaarkood maaragtay jaamacada maaragtay iska goosgoos oo maaragtay distance learning iska dhigtaan sida Germankan oo kale dhalinyaro kale badan
xataa distance learning ayagoo jaamacadihii ku jira baa qaarkood maaragtay borseeso loo soo dejiyey. Dhalinyarta qaar waxaa haddana caqabado kusii ah mataqaana qofkii oo high school dhiganayo oo dadaalaya ba haddana resettlement iyo arrimo kale u bilaabanayaan. Resettlementigii hal sano iyo waxbaa ku baxaysaa isu leeyahay. Iskoolkii moodi kartid oo niyad ahaan iskoolkii maaragtay dima aadi kartid. Waxaa is leedahay dibiri iyo beri dama qof baxayo wuxuu wax ka akhriyo waa baxaysaa 4 sano 5 sano 3 sano kugu qaadanaysa iskoolkaaga waa iska dhaaftay waxbarashada meel dhexa uga hartay waa iska dhib badan tahay laakiin mataqaana ilaahay mahadiis aad iyo aad bay maaragtay waxbarashada loogu dadaalay meel fiican aan ka gaarin dhalinyarta markii la dhaho Kakuma Kenya dhalinyartii soo gashay mataqaana 80% dhalinyarta aad u faa'iideysto dhalinyarta Kakuma ka imaato adduunyada meelaha kala joogaan ka shaqeeyo oo taqaana meelo badan aan kala xirino oo maaragtay positionno waaweyn hayo qaarkood UNDP-da Soomaaliya loo diro iyo meelo fiican bay ka shaqeeyaan marka walahi dadaal badan iska jiro dhibaatooyinka waa iska yiri aad baad u mahadsan tahay waxaan siinayaa in Faisal intayna ugu gudagelin bal fursadaha shaqo iyo bal qaabka in shaqlaantu ay uga jirto in xarada qaxootiga intayna ugu gudbin in waxa jirta in heer dugsi sare markii la dhaafo fursado in intee lagu waxbarasho ayaa u sii furan ardayda iyagu dugsiyada sare ku dhamaysa xiriyaha qaxootiga Ibrahim ardayda ka markay badana high school ka ay dhameeyaan dugsi sare markay dhameeyaan jaaniso waxaa jira oo ah diploma ay badana ka bartaan Nairobi oo DAFI program laha waxaa scholarship ka bixiya qola Jarmal ah ay soo maraan UNHCR marka taasi waxay ku qaataan dadka badana waa dadka aan markaasi dibcahooda aysan gaarin natiijada ii sheeg badan isku qaataan ABCD ila EWA marka qolada aan marka B iyo inta wax ka sare ay sahelin marka jaanisada waxa la siiyaa qoladaas si ay ga faa'iideystaan oo C+ wata oo kale jaanisada la siiyaa Nairobi loo soo qaaday ku bartaan ilaa 2 sano oo diploma ay ku qaataan oo hadda sponsor gareyso Jarmal ah DAFI marka dadka dhalinyarada kale marka la imaadana mise B+ ila imaado waxay helaan jaanisada isku WSCO program WSCO ah aad ku taala oo Canada fangareysa aadaasna waxa waa arday oo jaamacadaha Canada lacag laga soo aruuriyay sanadkii waxay ka qaataan sanad kasta 30 arday ka qaataan xirada ka qaataan 30 arday marka ardaydaas fangareysa qofka marka da'diisana waa in macnaha ay ka yaraataa 25 jir waa inay ka yaraataa oo marka dhibcaha laga rabay natiijada iskuulkan uu la imaado mise ma B+ oo la imaado inta keerna marka ma qaataan fursadaha badan ay helaan waa intaasi in ma jiraan fursado kale oo wax ka dhex furan xirada oo ay qaataan sida distance learning oo kale طبعا way jirtaa waxaa jirto waxaa jirta ay gadaamar dhuba la keenay adii wuxuu bilaawday programkaasi 2010 ka bilaawday 2010 ka bilaawday waa hay'ad oo qolada oo Mareykan ah oo ay dhahaan jaamacad oo ku taal Mareykanka Regis University ay dhahaan وجامعات مركب وحا شري الله سميان كنت كسومالي دي كنت كحرادة مركب جوجي مركب برنامج كوكو لستين أولو حكي جري distance learning كلا يدهانه يونيسا وجامعات كفورن سود أفريقيا أو بواكلية لكن هذا هي أجاب في عنته تمد هذا ما جامعات هي أجاب في عنته هاي قلب كي أيقو إذا لسوا الدجين كمبيوتري أو وحيو إذا النتورك ميشو الإنترنت كي يالين بواكتي لايبراري وحيو وحكم مقنين distance learning waxaa la bilaabay 2010 waa mid hadda anaga xitaa aan nafteeda kula hadlay aan dhigta hadda Allah idmo next year dhamaan doonaa August aan dhameynayno marka dad Janiskaas noo jira qoladan hadda waxaan horta aad ugu mahadinaynaa Regis University waa jaamacad ku taal Mareykan distance learning ah waxaan ugu mahadinaynaa waxay naga qaabileen shahaadooyinka Soomaali waxaa jirta arday oo hadda imaatay oo Soomaali markuu ka imaadeen oo shahaadooyinka Soomaali wateen oo interview markii laga qaaday aday ku guuleystay aad bay u soo dhaweeyeen shahaadooyinka Soomaali waan ugu mahadcelinaynaa jaamacadaasi aad adoo mahadsan waxaynu galaynaa bal in kulliba waxbarashadii inta badan ee dhalinyaradu way qaateen waxa jira fursado shaqo oo ka dhex furan xiriyaha qaxoontiga haday noqoto isbitaalada ku yaala haday noqoto qaybaha kala duwan ee hay'adaha iyagu ka howlgala in xirada Kakuma in adigu Faisal ahaan maxaad ka xusi kartaa bal caqabadaha ka hortaagnaa inaad shaqeyso caqabadaha iga hortaagan oo horta dhanka shaqada ka hadalno caqabado fara badan ay jireen xirada Kakuma xaqiiqatan shaqaalaha Soomaali aad bay ugu yaraayeen Soomaalida waxaa sunaa sida hadda walaalkayga Mukhtaar uu sheegay oo wuxuu ahaa nin volunteer ku shaqeynayay
volunteer markuu ku shaqeynaya 3 bil waxaa jirtay qoomiyada kale markaa shaqaale ahayeen oo incentive ahaan wax loo siiyo asagana Soomaali ahaan wuxuu u shaqeynayay volunteer ku shaqeynaya inuu macnaha dadkiisa u caawiyo wuxuu ahaa dad aad u yar baan ahayn asaqeed sportiga markuu joogay anaga waxaan ka shaqeynaynay xafiisadda kale joognay oo sida warka waxaan la siinayay waxaan ahayn qolo markaa meesha lagu xakumo oo qoomiyadaha kale markaa ka sareysa oo meesha lagu hayaan ahayn mar cod buuxo oo awood leh oo macnaha dadkaada ugu doodid macnaha ma aanan lahayn marka isku daydid in macnaha aad dadkaada xuquuqdooda u doodid waxa kugu dhacaysa macnaha in ninka markaa ku ah supervisor ku ah mise counterpart ku ah oo isla markaa qaxootiga ah in uu cadaadis ku saaro oo dhaho adiga waxaa wadataa discrimination mise dadkaaga doodaysa inuu culays ku saaro adigana waxaa leedahay shaqadan yaan laga ceerinin ee shaqadaada cesho markaas hadanta waxay kugu qasbaysaa dadkaaga oo markaas arkis dhibaataysan oo marka la xadid marka wixii hadii ka bataan dadkaaga culays mar walba la saarayo adoo u doodi karin oo lagu qeylinayo waxaa danta kugu qasbaysaa in macnaha shaqada iskaga tagtid marka waxay arrimahaas oo fara badan marka aan aragnay taas dadkuna ugu qasabtay in macnaha marka arkis aanan u adkeysan weyn inaan shaqeyno in aad u mahadsantahay Mukhtaar baan siinay Mukhtaar intii meesha aad joogtay oo aad isku dayday inaad bal iska u shaqeysato ama aad hay'ad u shaqeyso ama aad fursad kala hesho wixii kuugu dhibka badnaa la kulantay wallaahi Ibraahimow taas hadaan ka hadlo horta waqtigii ugu dhibka badneed waxay ahayd markii aan ka shaqeynayay youth and sport waxaa jirtay nin supervisor noo ahaa oo Congolese waxaan helnay caawimaad marka waxa la yiri waxa loo qaybsanayaa staffku waa banaayeen dadkana qoomiyada badan bay ahaayeen aniga markaas waxaan u shaqeynayay Somali community waxa dhacday inay macnaha oo ninka supervisor-ka ahaa uu dhahay arintii waa hadda markii Soomaalida ay soo badatay markaan ku sheegayo waqtigii aan kaamka ku yareen ma aha waxa dhacday inuu dhahay ninka supervisor-ka ii ahaa arintan mucaamilada waxa loo qaybsanayaa equal share qof walba macnaha community walba in isleeg ayaa la siinayaa macnaha si isleeg baa loo qaybinayaa waxaana jirtay oo aan dhagta ku hayay aniga markii hore in kaamka loo qaybsan jiray sidaas marka anaga population-keena uu low ahaa oo laga sareeyay in isaas loo qaybsan jirin oo macnaha dadka u badan ay leeyihiin 80% ku xiga 70 60 ilaa iyo macnaha waa la kala badan yahay anaga markaan u yaraan isaas loo qaybsan jiray ninkii supervisor-kii ahaa ayaan waxaan ku dhahay arinta sida ma ahane anaga maadaama aan nahay macnaha Somali majority hadaan nahay de Sudan iyo Ethiopian iyo Congolese macnaha isku in qaybsan mayno laakiin waa inaan macnaha anaga inta ugu badan aan helo oo aniga community-ga hadda waxaan ka soo qoraan dhahay waxay ahayd tirada aan soo qoray 82 qoys oo dhibana ah marka waxaan dhahay sidaas wax looma qaybsan kare waa inay macnaha si anagana loo hormariyo oo macnaha sidii loo kala badan yahay wax loo kala qaybsado markaasuu yeeramay waa sidaas waan ka tagay main office-kan tagay xafiiskii weynaa baan tagay arintii dadkii macnaha staffkii waaweynaa baan u sheegay kulley inkastoo iyagiiba macnaha wixii wax iswada ahayeen haddana waxay noqotay inay waxba aan ahayn inkastoo macnaha xaqii ay arkeen inaan macnaha arin xaq ah oo reality inaan kala hadlay haddana waxba sidaas aan sii ahayn oo yacni aan naftirkeyga markii dambe iskaga qancay maadaama aan muujiyay macnaha inay macnaha wax ay ka jiraan meesha laygu qanciyay oo sidii macnaha layga sareysiyay aad baad u mahadsan tahay deeq adiga in aragtidaadii iyo ogaanshahaagii dhalinta Soomaaliyeed fursadaha ay shaqo ay helaan waxa ka hor yimaada mushaarkii qaataan maxaad ka xusi kartaa runtii fursadaha shaqo horta meesha ka jira aad bay u yar yihiin dad badan way codsadaan taas waa maaragtay fursadaha meesha ka jira intay la egyihiin caqabadahana waxaa ugu weyn hay-adaha meesha ka shaqeeya oo runtii capacity-gooda aada u yaryihiin oo adigoo dee shaqeynaya inay caqabado badan aad la kulmaysaa maadaama servicekii ama adeegii ay bixinayeen uu yaryahay
markii aad communitygaaga aad u shaqeynaysid oo dadkii aad ku noqotid mararka qaar aniga tusaalehaan xafiiska caruurta ayaan la soo shaqeeyey markaad aad ku noqotid bulshadaadii aad u shaqeynaysay aad isku daydid inaad runtii u sharaxdid waxa meesha yaallo runtii kuwa badan way kula yaabayaan kuwa islaam dara imaanaysa marka taasna waxaa waaye budgetka hay-adaha oo runtii aada u yar mararka qaarna waxaad dareemeysaa in public relations uu aada u hooseeyo maaragtay wada shaqeynta bulshada iyo hay-adihii oo maaragta dadka ay aaminsan yihiin inay hay-adihii wixii loogu soo talagalay qaxootiga ay lunsadaan marka adigoo socda oo dee bulshadii dhexgelayo xaafadihii tegayo ama mar statistics qaadaya marar holo kala qaban inaad bulshadii ka dhaadhicisid mararka qaar runtii waa caqabad caqabada kale waxay tahay incentive-ka runtii wax salary la yidhahdo meesha kama jiraan xaqiiqdii oo waxaa ka jira incentive oo iska ah maarata saabuun qofka effortka uu maaragtay uu bixinayo maaragtay inputka uu sameynayo iyo runtii wuxuu helaya aada bay maaragtay ay u kala duwan yihiin waayo waxaa lagu shaqeeyaa xaalado runtii harsh environment aada maaragtay u adag oo waqtiga aada u kul meesha aada bay u kulushahay cimilo ahaano marka waqtiyada duhradii oo kale meelo lagu dirayaa markii adiga aad xisaabtantid in the end waxaad dareemeysaa waxaad gelinaysid iyo waxaad ka helaysid inay aada yani u kala fog yihiin laakiin haddana qofku ku qasban yahay intuu meesha si idlena uu iskaga joogi lahaa inuu dhaqdhaqaaq u sameeyo aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir in adigu bal ka waran fursadaha shaqo in xag ganacsi hadday noqoto qofku muxuu doorbidi karaa baad is leedahay macnihii carqabadaha shaqada markaad aragto ka hor imaanaya dhalinyarada xerada qaxootiga Kakuma بسم الله الرحمن الرحيم xerada qaxootiga Kakuma in badan baan joogay deebka ugu weyn oo aan la kulanay waxa weeye kuwa xafiisyada oo shaqada sida dhalinyarada saaxiibada u hadlayno incentive-ka in yar oo muxuu mushaarada wax yar tahay tan labaad waxa weeye muxuu deebka naga soo gaaro waxa weeye xagga maxaan marka Soomaalinahay aan ka shaqeysan sida dhalinyarada kale oo muxuu xagga security marka laga hadlo baqdin iska jirta oo qofka haduu shaqeysto oo xawaa in yar baqdin jirto tan kale waxa xagga hay'adaha marka laga hadlo xagga sports in badan ba sports la shaqeeyo dhalinyarada ma muxuu hay'adaha wixii tiimamkaan leenahay marka laga hadlo iyo maaragtay iyo kooxaha aad bay u badan yihiin laakiin waxaan helayna aad bay u yar yihiin marka dhibaatooyin badan baa kala kulnay hay'adaha laakiin alxamdulillah hadda marka majority noqonay kaamkii qaxootiga u badannahay xogaa hadda sidii hore waa dhanaa oo sanadii 97kii 98kii waa dhanaa hadda majority marka nahay xogaa in fiican baa helnaa oo aad baa nala xushmeeya waana muxuu alxamdulillah isfahankii waagii horena isfahankeen aad buu hadda maaragtay dhaxdeen dhalinyarta aad buu u fiican yahay isfahan ahaan muxuu xagga muxuu community-ga aad baa isku fahmaa xagga markaan ka hadlo dhalinyarada person ahaan ninka shaqeynayo dhalinyaro way jiraan oo shaqeysto oo qaar muxuu baaskiilo wado oo muxuu booda ah oo muxuu xaafadaha ka shaqeeyo dadka qaado xagga hadda ayaamahan waxaan ugu soo kordhay muxuu xagga muxuu taxi baa kaan kusoo biiray iyo mootooyin marka mootooyinka dhalinyarada badankood qaar ma awoodaan laakiin inta awoodo way shaqeeyaan alxamdulillah sidii waagii hore ma aha shaqada alxamdulillah wax baa la helaa taksiyadana dhalinyaro badan baa hadda ka faa'iideysto oo ku shaqeysta xagga taksiga aad baad umahadsan tahay maxamed yuusuf aan siinaya maxaad ku daraysaa adu in carqabadaha shaqada in dhalinyarada in wallahi markii shaqada ahaan la fiirsho Kakuma aniga waxa waaye anoo 10 sano jiraan imaaday dhab ahaanta markii laga hadlo wax shaqo la dhawto meesha kama jiraan qof kasta wuxuu isleeyahay maaragtay maadaama meesha aad joogtid xubaa yaro high school maaragtay il furashaan aad iska baratay oo heer jaamacad iyo waxbana aad gaarin meeshina aad ka tageen dee ku qasbantahay meel kale aadaysa jirin iska dhaqdhaqaaq maaragtay wixii yaada ilmaamin qof maaragtay mataqaana wax shaqo gelinaya iska dhig laakiin wax shaqo la meesha kama jiraan hay'adaha meesha imaado waxa waaye maaragtay shaqada inta u badan marka shaqada ka doonatid oo kale ama waa iska banaayeen shaqooyinkii waa ku yeerayaan laakiin shaqada inta u badan waxa waaye inta adag ku saarayaan qofka bilaadanka markuu shaqeeyana wuxuu u baahan yahay waa qof bilaadan oo mataqaana inuu noolaado rabo wuxuu ku dhaqaaqi lahaa haba yaraatay xataa maaragtay fiiga ama basfeega uu meelaha ku gargaari lahaa waqtiyo aad u kulul sida walaalkii uu sheegay baa lagu shaqeynayaa waxa lagu siinaayana meesha waxbana wax xataa laba maalin qofku isticmaali karo markii lacagaha Kenya loo isticmaalo maaragtay ama loo fiirsho maahan marka wallahi aniga shakhsi ahaanteeda markii maaragtay hal dhib uu qabsaday anigoo mataqaana meel yar internet ka shaqeynaya baan haddana internetkii ama meeshii ka shaqeynayay markaan ahaa computer operator ahaa
waxaan is dhahay dee niyo meesha intaas sana u shaqeynaysaa wax recommendation oo abdeen ka helaysid inaad meesha ka shaqeyn jirto malaha bal hay'adahan ma iska fiirisid ayada ma taqaanaa bal recommendation iyo waxbaa laga helaa meesha markaan tagay dee haddana arkay maaragtay dee dad adiga ka level saraysid oo maaragtay in isku dhaweyn oo meeshii ma taqaanaa dee ku amraayo oo asaga waxbana aan soo qabanaynin oo ma taqaanaa adiga wixii shaqooyinkii oo dhan inuu ku korsaar rabo times of exploitation ahaana u arkaysaa markii maaragtay qaabka oo fiirisid waxyaalo qaarkood marka loo film eed haddana meesha intaan ka tagay child protection ahayd at the same time resign garay mar waa ay shaqadan haddana film eedan ayaama la shaqeeyey markaa dhahday permanent ahaan ma ay shaqaaleysan waxay ku leeyihiin maaragtay si temporary iskaga shaqeeya oo maaragtay filmo dhan maaragtay ama programmo dhan oo hay-adaha ka hadlaya ama United Nation ka hadlayo baa turjumaysaa oo fasiraysaa oo qoraysaa Ingiriis to Soomaali baa oo translation oo sameynaysaa waxa ay ku shaqeyn lahaayeen 3 bil 4 bil baa maaragtay 10 maalmood maaragtay lagu soo siinaya xoogaa shaaxa marka dhahday shaqadii anaga ay baahantiin marbiga maarantaan adoo halka Nairobi joogta ku soo wacayaan marka waxa waay wallahi shaqooyin meesha kama jiraan maaragtay dhalinyarada waxa ku kalifaa inay magaalooyinka u dhow Nairobi meelaha iska soo aadaan macnaha in aad u maasan waxaan galaynaa bal in sports ka kale in waa ciyaaraha ugu bacni badan ee dhalinta Soomaalidu waa ciyaarto oo ayna oran karno ku madadaashaan in heer inta lag bad ka gaarteen xagga intimaamka sportska wallahi sportka waxa way Soomaalida markaan dab ahaan ka hadalno sportska meel kasta marka adduunka fiirsid ayadoo ka kuma kaliya ahayn saaid bay u dadaalaan haddana ma aqaan meel bay ka gaabiyaan oo adduunka maartay heerarka marka fiirsanaysid meel ah Soomaali sportka xagga dhinaca macna sport oo dhan ka arkaysid malahan dab ahaantii aniga Soomaalida aan la midnahay sportka dadka maartay aad u xiiseeyaanahay xagga banooniga 180 dhalinyarta banooni bay dheelaan in Euro basketball dheelaa ku jiraan iyo indo games xawaayaro ka qayb galaan laakiin markii nin weyn soo noqotay doodee nin weyn oo amal la rabtaan ama sportka shaqaha ku noqdo ama ina shaqo caadi raasto nin weyn baa noqonaysaa family baa mas'uuliyad qaadaysa inay guursato baa isku kalif maar isku dayaysa sportka wallahi dhalinyarta oo ku dadaalaan oo waa sameeyaan laakiin waxa way hay'adaha sportka dadka jooga waxa way aad mu taageeraan xagga banooniyaanta maaragtay cariiri buu ku yahay xagga maaragtay garoomadii bay saahaysan laakiin sportka aad iyo aad baa kuma loogu dadaala heerar badan baa laga gaaray professional referees oo maaragtay tababartay baan leenahay marka wallahi sportka aad baa u fiican in waxaan siinayaa in Cabdiqaadir kullu in badan baa laga yaabaa inaad xiiseysaan in sportska ama balooniga in waxaana jira qoomiyado badan oo inta badan competition badan baad gashaan oo aad la gashaan qoomiyadaha kale oo xagga tartanka ciyaaraha oo kale maxaad ka xusi kartaa bismillah alxamdulillah xagga sportska kan dhaho sportska aad buu kuma loo xiiseeyaa xagga footballka basketballka table tennis indoor gameska suu maxamed saabki uu sheegay xagga markii la yiraahdo sports waagii hore 1998 1997 8 9 waaga waxaan ilaa 2002 waxaan fangareyn jiray hay'ad ka socoto Holland oo wadanka Holland hatta waxaan la siin jiray kubado aad u fara badan t-shirts timamka xagga timam badan baa jiray oo heer Serie A ah dhalinyaro laacibin badan baa soo maray sanadkaas oo dhalinyaro badan oo laacibin ah sida jaamici wiil dhigi jiray oo ka ciyaari jiray heer Soomaaliya qaran soo dheelay baa jiro dhalinyaro nin laacib ah hore soo maray marka laacibin badan ayaa jiray sanadkaas laakiin kooxaha waagaas waxa jiray wal fangareyn jiray waxa fangareyn jiray timam waxa jiray individual ah oo la leeyahay sida waaga waxa jiray taar baa jiray oo loogu magac daray ciyaartooyda xoogaa wuxuu siin jiray motivation wax yar oo sheexeed la heli jiray kadib adiga 2005 wixii ka dambeeyay fangareyntii aad bay hoos u dhacday xagga sportska markay individual Soomaali ahaan anaga dhaxdeen markii because waagii dambe xoogaa waxaan soo galay bixitaan iyo buufis iyo waxa nin walba maaragtay taarkin hoos u dhacay shaqadii iyo dadkii sida ciyaartooyda wax loo siin lahaa hadda alxamdulillah sportska iyo markii dadka kale la degan ajnabiga ah hadda aad baa sportska u sareynaa hadda koob waxa jiray 2011 ah oo aniga coach ka ahaa waxaan ka qadnay 16 koox oo ilaa waxaan dheelay waxaan dheelay Suudaan dadka degan meesha host community Turkana Ethiopiana dheelay waxa dheelay Burundis Congolese baa dheelay anaga alxamdulillah koobkii finaalka waxaan la kulanay finaalkii Congolese penalty ugu qaadnay marka xagga sports markii loo dhib badan baa marka waxa dhibka ugu weyn hadda challenge la soo gaaro waxa dhalinyarada qaar markii sports waxa loo xiiseeyo hadda xoogaa hoos u dhacdo because qof walba process iyo bixitaan wuxuu rajinaa marka wuxuu ka baqayaa hadda jabtiniyo yaa ku siinayo ama hadda dhaawac gaartid
qof wax ku daaweynaya malaha familkaaga dhib ha u keenin ama qofki waxa leeyahay qofku wuxuu marayaa caafimaad ama wuxuu marayaa muxuu medical oo IOM ama meelba u socda marka sportski sidii hore waa dhanaa oo markii la dhaho sida maaragtay koob qaaditaanka waa koob badan baa qaadan sanadii u dambeysay 4 sano u dambeysay laakiin hadda sanadkan iyo wuxuu qaad bixitaanka dhalinyarada aad bay u cusubaan bixiyaan ay baxaan wadamada dibadaha iyo sida u xiisayaan marka nin walba xogaa uu baqaya tan kale waxa weeye oo maaragtay oo dhibku weyn soo gaar waxa weeye waqtigii oo la dheelay aad u kulul climate waagi hore aad u ronaad laakiin zaid because waxa weeye time la dheelay aad buu qoraxda aad buu kulushahay 12 saac bar amna ku badal garoonka limaada muxuu ahaa dhalinyarada aad muxuu ahaa qoraxda iyo aad muxuu ahaa sidii hore waagi hore energy badan ugu jirjada laakiin xogaa waan weynaanay waxaan aragnaa maaragtay qoraxda inaan la qabsan karin meeshii iyo climate-kii aad daciif qofkii muxuu ahaa meeshii nutrition badan meesha ma jiro cabitaano yar baa la iska helaa laakiin sida hadda magaalada Nairobi oo kale ma aha ama dibadaha kale marka alxamdulillah laakiin sportska aad baa loo xiiseeyaa laakiin muxuu ahaa dhibka ugu weyn dhib kale oo soo gaar waxay familydii Soomaalidii oo aad u xiiseeyaan sportski waxaa arkaysaa nin ciyaartooy laacib ah oo heer xataa oo gaari karo professional player oo familkiina maaragtay u diidayaan inuu ka qayb galo footballka alle maxaa dhalisaa waa jabaysa asagana niyadiisa dreamkiisa tahay inuu muxuu ahaa professional football gaaro dibkaasna wuu soo gaaray marka qaxootigaada aad baad mahadsan tahay waxaan siinayaa Faysal oo barnaamijka gabagabadiisa aan soo gaarnay waad aragtaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay isaga gudbeen deegaano kala duwan oo wadanka Kenya oo ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan haddana waynu ognahay deegaanka Kakuma inay ku nool yihiin ama ay tahay deegaanka dadka loo yaqaan Turkana oo inta badan dhaqankooda aan aragnay bal markaad aragtay isbedel intee leeg baa ku yimid dhaqankii Soomaalida intee in leeg bay hayaan dhalinyaradu dhaqankii Soomaalida ما شاء الله مستر إبراهيم ودقنك مركب في رصيد أورتا سومالي أنا قد دقن كينا أورتا أنا هو يلي لنصوّد قحنا بدنا قار كين وحان هيل ستيجيرو تونجيرو دقن كي حتى سيف عنه ما أقول لكن مركان حرد أنا إيمان جوبني إنسان جوبني بدنا وحان كفاية سنجني وحان أركيد جنة حفلتها سيد الله ديجو حفلات كي مركا قداش نجهورية حفلتها سعوديان markii kadib aan soo weynaanayna waxaan ka daawanay macnaha ay inoo bareen in anaga isku dayno in aan sameeyno laakiin waxaan la yaabnaa markaan xalada aan ka kuma imaanay dhaqanka sida host community-ga qolada aan la deganahay aan wartida aan u nahay Turkanada dhaqankooda markaan fiirinay waxay nala noqotay dhaqan cajiib ah oo la yaab taasoo macnaha marka qaarkiis xitaa awoori jirtay isku dhac culture mismatch dhici jiray oo taasoo macnaha dhaqan kala duwan dadkii macnaha oo iska qaqaaban oo naked ah aan la yaabi jirnay oo markaan fiirino xataa aan dhihi jirnay a'uudu billahi maxay waxaan agtaa qaawan mise odigaan saa u qaawan muxuu yahay ayagana la yaabi jireen meeshii isku dhaca meeshii ka dhici jirtay laakiin marka dambe waxay noqotay wax aan la qabsanay taasoo macnaha ay sababtay in xitaa marka qaarkii dhalinyaradii aan iswada barano luqadooda xitaa in isku dayno in aan ku hadalno oo isdhexgal u yimaado badanaan waxa taasina waxa ka qayb qaadatay dhanka sportiga hadda dad soo u soo qaato waxa jirtay team oo lagu magac daray oo walaalkayga coach ah isheeg Cabdiqaadir MFA ahaan oo MFA lagu soo gaabiyay macallin Farid team ah oo teamkaas oo qowmiyad kasta ku jirto Suudaan ku jiro waxa ku jirto Turkanti oo host community ah waxa ku jirto isheeg qoladan Francophone Burundis iyo Congolese ku wada jiraan iyo Soomaali ah waa la isfahmay hadda dhalinyarada waxay noqotay in af Soomaali qaarkood xitaa ay barteen waxa arkaysaa nin Turkaan ah guriga la joogo af Soomaali ku hadlaaya oo afkii Soomaaliga kula yaqaano dharkii kula xirana saaxiibaad yihiin marmar isla cunteynaysan oo ku imaana dhaqankii uu bartay wuxuu ku warniyo 20 shilin idib aniga 50 shilin idib baaskiil halkaan naga raaco soo bixina waxaad aaminsantahay ninka waa nin Soomaali ah aaminsantahay hatta waxay gaareen ay qabaa'ilada ay kala bartaan waxay ku leeyahay qabiilkaas aan ugu kulay waa nin Turkaan oo qabiilada Soomaaliya si sheegana luqadeenu markuu ku hadlay af Soomaaliga waxa leedahay ninkan xaq ku bartay si clear ugu dhawaaqa anagana dhalinyaro fara badan waxaan leenahay markay hadlayaan luqadooda waan fahmeynaa qaar waa la fahmayaa warku waxa is dhexgal weyn ka dhacay inkastoo marka ugu horeyntii ay dhibaato ka jirtay isfahanka laakiin hadda waa la isfahmay taasina badan waxa isku keenay qaybta sportiga marar qaar xitaa waxa jirta xafiiska Youth Protection and Development Unit in macnaha uu sameeyo xaflado 3 bil kadib uu sameeyo taasi oo hidii dhaqan la isku keeno hidii dhaqanka Soomaalida iyo Francophone Suudaanta
iyo qolada ii sheeg hosta community-ga Turkaanta oo isku keeno taasoo hidaha dhaqanka aan isku baran hadda macnaha waa xifdinay Etoobiyaanka si u ciyaaraan dhaqankooda waan aqaanaa Suudaanti waa baranay Turkaantina waa baranay taasina macnaha waxay noo keentay wax weyn inta macnaha isdhexgal oo muhiim ah Mukhtaar baan siinayaa wal xagga dhaqanka markii la eego markii aad ku cusbeedeen Kakuma oo kale iyo dadkan Turkaanada oo iyagu inta badan aan hayn dhar qaata in saameyn inta leeg bay dhaqankiina oo ku yeeshay dhaqankooda iyaguna dhaqankooda oo ku yeeshay kiina wallahi horta waa arin macnaha wax walba horta marka ugu horeyso waxa way aad ba ula yaabaysaa kadibna waxaad moodaa anaga markii dambe hadda waxaan aaminsanahay anaga Turkaananahay ya aniga hadda maanta waxa waaye horta sida macnaha qaasatan Soomaali hadaan nahay anaga horta macnaha waxa moodaa dhaqankiina ku adagnahay runta markii la sheego waxyaalaha badan oo macnaha xagga Turkaanada iyo Suudaanta sidoo Faisal sheegay waxa jiro dhaqamo kala duwan in aan la kulanay macnaha maadaama meeshii Kakuma refugee camp la iskugu yimid intaas oo qowmiyadooda kala duwan waxa waaye horta waagi hore dagaal baa dhici jiray oo dad baa xitaa iska diri jiray qabiil walba isku dhaco Turkaana iyo Soomaaliya isku dhacaan Suudaan iyo Soomaaliya isku dhacaan Ethiopian iyo Suudaan isku dhacaan waxa la isku dhaco dagaal intii badan horta waa ka dhici jiray ilaa iyo 1998 ilaa 2000 waxa bilaabatay macnaha in dafurito in dadkii wax fahmaan 2001 iyo 2 in la isfahmo in la isdhex galo in la isbarto dhaqamadii in la soo galo horta Soomaalida macnaha waxa waaye waxa aniga Turkaanada waxa moodaa in badan horta dhaqanka inay macnaha ay iska shabahan marka laga reebo xagga macnaha wixii iyaga cawaanimo iyo macnaha diin darada ah marka laga reebo waxyaalo badan oo aniga macnaha aan Turkaanada ku arkay ama odayaasha Soomaalida aan ku arkay odayaasha Turkaanada aan ku arkay waxaad moodaa inaan macnaha iskaga midnahay waxaad ka xusi kartaa in dhaqamadaas isu dhow ee Turkaanada iyo Soomaalida waxaan macnaha aan ka xasuustaa garta odayaashina Soomaaliyeed si garta u gooyaan iyo odayaasha Turkaanada waxaan maqli jiray aniga kulli meel gor lagu gooynayo ma arkin laakiin waxaan maqli jiray garta geed baa la laadi jiray waayo Soomaalida garta ay goonayso sida macnaha Turkaanadana waxa waaye markii ay dan iska soo gasho ama ay macnaha wada gartamayaan waxa jirto inay geed barxadaan oo halka garta ay ku goostaan dhinacyada xagga arooska gabadha macnaha sida macnaha la iskaga doonay iyo waxyaalo badan oo aan ku arkay oo hadda waxyaalo badan hadda iga maqan oo ajirto askaga eegnahay marka waxa waaye kuwa kale oo Suudaanta iyaga laakiin inaan kala duwanahay moodaa waxa waaye Suudaanta waa kala duwanahay laakiin Turkaanada xagga dhaqanka iskaga duwanahay aad baad mahadsantahay deeq maasiinay deeq maxaa ka xusi kartaa bal xagga dhaqanka kala duwanaanshaha meeshaad ku nooshiin qowmiyadda ku nool iyo qowmiyadda Soomaalida inkastoo hadda ay jirtaba inaad dharkiina u xirtaan hadda oo aan hadda la oran karin ba Turkaanadu waa qaawanta xaqiiqatan horta kala fogaashana waa jira xagga dhaqanka dadka la noolaa meesha meelaha qaarna runtii waa la isaga egyahay mararka qaarna waxaan moodaana inay dhacaan maaragtay khilaafyo ku saleysan dhaqanka ama culture clash meesha ka dhacaan waxaan ka xusi karaa oo kale Suudaanta waxaan isaga midnahay oo kale waxaan Soomaalida u taqaan yaradka markii gabar la doono in wax laga bixiyo iyaga aad bay taas u isticmaalaan xagga maaragtay qiimeynta dumarka ay ku leedahay runtii jaahilkiisii Soomaalida ahaan jirtay oo kale iyaga tii gabar maaragtay la taabto ama la faraxumeeyo laba qabiil ba isku rogmada Suudaanta dhaqamadaasna waxaan u maleynayaa weli baadiyaha Soomaalida inay maaragtay ka jiraan xagga Turkaanada oo kale waxaan ka xusi karaa qaababka maaragtay dhowr u sameystaan dhowr iyo waxay sameystaan bahal lagu barkado Soomaaliya waxaan maleynayaa gobolada qaar inay barkinka ay wala isticmaala bayba wali inta badan u badan bay bakool yahay bay bakool iyo marka wuu jiraa laakiin arinta ugu daran oo arinta dhaqanka dhalinyarada ka taabanayso waxay tahay ugu muhiimsan waxay tahay iyaga oo wadankii aad ugu fog qurbaha marka inuu saameeyo maaragtay in dhaqankii aad looga fogaado dhaqan hadii kolley waa way of life qaab dad u nool yihiin luqadda cuntooyinka marka xagga Soomaaliga oo kale inuu maaragtay laga yaabaa inuu maaragtay uu noqdo Soomaali si uu yara qaldan
iyo maaragtay himiladii iyo inaan wadankii maaragtay dhalinyaradii iska iloobeen oo maaragtay aysan connected ku ahayn maaragtay wadankii Soomaaliya. in aad baa mahadsan tahay su'aasha ugu dambeysay ay waxaan ka bilaabaynaa Faisal hadda Soomaaliya waxa u dhalatay dawlad aan ku meel gaar ahayn waqti badanna waxaad maqlayseen xaalado kala duwan oo siyaasadeed iyo jahawareer siyaasadeed oo ka soo yeeray wadanka Soomaaliya dareen inta leeg bay kugu sameeynaysaa wadankaagii oo burbursan oo marba marka dambaysa macnihii ay ka kumid ku soo gaarayeen waliba dad ka soo barakacay oo cusub oo sanad walba macnihii soo barakacay dareen inta leeg bay macnihii arrintaas kugu sameysay wallaahi Ibrahim wallah ma sha Allah horta markii doorashada hadda ay socotay lalada kama aga dhaqaaqin saan ma u agtaagnaa Nairobi aan joogay waxaan isdhahay waa fursad aad u weyn maxaa yeelay lalada kama aan tagsin waxaan sugayay waxay ahayd in lagu dhawaaqo madaxweynaha waxaa naga badatay transitional government marka marwalba naga badatay markaan waxaan dhahnay waa mid ugu dambayso marka habeenka lagu dhawaaqay horta Ilaahay baa ilaaw habeenka ma aanan seexanin farxad awgeeda waan xasuustaa xaafadda qolka xitaa ka soo baxnay dhalinyaro badan aan saaxiibo ahayno isku xiraan ka imaan isla deganahay qolkeen ka soo baxnay dadka magaalada marka ka caasaneed ayaan farxadii iyo dadilada ka socotay aan la qayb qaadanay wax farxad wuxuu ugu abuurtay aad iyo aad u weyn aad aan ugu faraxsanahay maanta wadankeena dawlad inay macnaha ka dhacdo dawladda dirta aad aan ugu faraxsanahay boqolkiiba waana taageersanahay maanta because waxay nagu mar walba in qaxooti erayga refugee marka fiirisid waa dhibaato oo macnaha qalbigaaga mar walba qalbigaaga oo cad maracas oo rinji madow ah oo das lagu siinay waa la qofkii macnaha xero ku jira ayaa dareemi kara ma fahanti dhibaatooyin fara badan oo ku aragnay refugee camp iyo wadan aan wadankaaga ahayn ma garatay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay haddana waxaan leeyahay macnaha aad u jecelnahay in macnaha wadankeena xitaa aan ku laabano aad u rajaynaynaa okay waxaan siinayaa in Mukhtaar in adigu kulliba waxaan maleynayaa inaad chance u helin inaad aragto dawlad Soomaaliyeed oo jirta ama meel ay ka jirtaba marka in dareen inta leeg bay kugu leedahay in dawladda Soomaaliyeed aad weliga allaha aanad waqti la qaadan iyo waliba waqtigan hadda isbedelku uu jiro iyo rajada adiga aad leedahay ee ku aadan in mar oo Soomaaliya aad ku laaban doonto wallahi Ibrahim horta waxa waaye hamigii ugu weynaa horta maanta ahay waxa waaye sidoo horta dawlad waa go'aanimo adduunkan u jeedo horumarina waxa lagu horumari waa dawlad anigu dawladii hore Soomaaliya ma ogeen laakiin waqtigii aan soo jiray aniga intii macnaha TV aan hor fadhiisto for the whole day maalinka dhan horta waxa jirtay maalinkii doorashada madaxweynaha la dooranay waxa waaye shucuur iyo spirit iyo han iyo wax walba horta isaarna maalintaas jirkayga xitaa si kale u ahaa waxaana aad ugu farxay markii madaxweynaha lagu dhawaaqay waxaan rajeynayaa Soomaaliya inuu Ilaahay uga dhigo kan kii uu soo diray oo dejin lahaa aniga hamigayga awal horta waxa ku jiray inaan dhoofo iyo inaan meel aado intii aan joogay meeshaan aniga laakiin wixii waqtigaas ka dameeyay waxaan macnaha rajo waxay soo gashay inaan wadankii hooyo aan ku laabto wixii dadkayga u qaban karo wixii aan qabsan karo dhulkayga hooyo inaan ka qabsado waxa waaye ilaa haddana macnaha hamigaas ay u taagan waa maasan tahay waxaan siinayaa deeq dareenkaaga in ku aadan waqtigii badnaa aad ku soo qaadatay xerada qaxoontiga iyo dawlad la'aantii wadanka Soomaaliya ka jirtay iyo hadda iftiinkan hadda Soomaaliya in u muuqda inay dawlad hesho wallahi xaqiiqatan horta anigu lama koosan dawlad Soomaaliya oo shaqeynaysa anigoo yaraan soo qaxay sida asxaabteeda halkan fadhida intaasna yani waxaan ahaa qof qaxootiya marka arrimaha Soomaaliyana runtii waan daneynay ilaa haddana waa daneeyaa inaan la socdo runtii xanuun badan bay leedahay in qofka uu qurbo ku koro waliba qurbo qaxootiya iyo maaragtay wadan Afrikaana oo inkastoo aan Kenya ku mahadinayno haddana caqabado runtii aad u badan oo baan kala kulanay iyo xuquuqo badan aan lahayn ma aan helin arinta ugu weyn waxay tahay dhalinyarada arinta maaragtay saameynaysa waxa la yiraahdo hope rajo inay helaan mar walba oo wax iftiina ama horumar yar ee Soomaaliya runtii ku talaabsato aniga dareenkaygana runtii aad ugu weyn yahay
in maaragtay Soomaaliya ay horumar gaarto xagga siyaasadda iyo nabadda. laakiin arinta iyadana muhiimadeeda la waxay tahay marar walba asdaano isbedel ayaa jira runtii hamigii iyo rajadii way kacdaa kulama hadana ay wixii sidii la rabay ay u shaqeyn waayaan hadana runtii rajadii hoos ayay soo noqotaa. marka magacyo badan baa loo soo bixiyay dawladda badan oo Soomaaliya loo sameynayay meel wadamo badan lagu soo dhisay inkastoo tii hadda Muqdisho hadda doorashadii ee waddanka gudihiisa lagu qabtay inta ay leedahay didiiladeeda haddana aniga waxaan qabaa maaragtay inaan u dhaxayno rajada iyo waaqica maaragtay inaan u dhaxayno marka si maaragtay aan runtii u balance galno labadaas sina aan u noqono dad waaqica ku nool sina aanan u lumin rajadii aan ka qabnay dalkeennii iyo mustaqbalka uu yeelan doono. marka waxaan qabaa arinta maaragtay oo mafsalka yani wax kala saaraysa inay tahay sida ay hadba wax noqdaan hadba dawladda cusub wajiyadeeda la imaato iyo qaababka ay maaragtay ku qaabisho caqabadaha runtii qabsan doona caqabadaha hor yaala runtii aad bay u weyn yihiin. marka waxaan dhihi lahaa aniga kulley waxaan u dhexeeyaa rajo iyo inaan xaqiiqda ku noolaado rajadana ma luminayno maadaama aan dhalinyaro nahay mustaqbal baan tigsanaynaa. marka ilaahi subxaana watacaalana waxaan ka rajeynayaa in maaragtay wadankii inoo xasiliyo maalin un maaragtay aan kulley fursad aan u helno inaan si nabadgelyaha oo baraaraha ugu noolaano. aad baa umahadsantahay cabdiqaadir bal adigu dareenkaaga maanta waqtiga hadda muuqda oo xaaladda siyaasadda Soomaaliya ka muuqda iyo in rajadaadii inta badan aad ku qabtay xiriyaha qaxoontiga oo maalin walba aad arkaysay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo sanadba sanad ka dambaysa kuugu yimaada xerada Kakuma isagoo ka soo cararay dhibaato wadankii ka jirta. bismillaahi raxmaani raxiim horta alxamdulilah baa mahadleh Soomaalidu waxay dhahdaa muxuu ahaa dawlad la-aan waxaa dhaantay dawlad xun. dawlad waa dawlad waa sharci waa nolol waa muxuu ahaa wax walba. marka alxamdulilah aniga aad baa ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo muxuu ahaa ra'iisul wasaare madaxweynaha iyo wasiirka baarlamaanka la doortay. anaga qaxooti in badan baa joognay dhib badan baa la kulmay xagga nolosha xagga muxuu ahaa diinta adoo nin islaam ah gaal ah meesha ku badnaay in badan xag Kenya aad bay u maasanta dawladda Kenya wax badan baa ku baranay aad aniga waxa jirto Nakuru aan degnaa. marka alxamdulilah dawladda horta alxamdulilah baa mahad dawladdan waxaan ka ilaahay ka baryaynaa dawlad ma aragtay dawlad cadaalad noo noqoto dawlad shaqeysa dawladda waxa jira waa dawladda mar badan madaxweyne la soo doortay laakiin sanadkan aad baa rajada iyo aad bay igu wanaagsantahay aad baan u faraxsanahay madaxweyne oo ma ku malgaar muxuu aan ka baxnay madaxweyne aan helnay aad baan ilaahay baa mahad leh aad baan u faraxsanahay aniga muxuu ahaa dawladdana waa aad baan u rajeynayaa insha Allah Soomaaliya nabad ka noqoto. maxamed yuusuf dareenkaaga wax badan aad la joogtay xiriyaha qaxoontiga Kakuma maslaada maroon meeshii dadka qaxoontigu maalinta dad cusub ay kugu yimaanayeen inay dhici karto maalin in dib loo noqdo oo aduguna aad ka mid noqoto dadka dib ugu noqdo wadanka Soomaaliya. wallaahi waxa waaye Ibrahim aad u mahadsantahay. wallaahi haddaan aan fadhiyo meeshaan macnaha shucuurteeda aad u kacsantahay waxaan macnaha taas keenayo markii hore hadalka bilaabayo waxaa waaye Soomaali Channel maaragtay uma mahadcelin waa iska hilmaansan maadaama saaxiibadeena aan hadlay laakiin hadda waxaan mataqaanaa arrintaas dareemsiiyey aan ugu mahadcelinayaa in badan oo TV-da aan daawanayo arrimaha Soomaaliya laga falaqoonayo baa mataqaanaa waxaas dhahay furiyaan taagan niyo dadka Soomaaliyeed maaragtay amay wax u baahan yihiin la sheegtay. wallaahi niyo Soomaaliya ma ahan maaragtay dadka Soomaaliya kaliya joogo taas waxaa dareemi kara maaragtay dadkii soo qaxay ama dadkii dhibaatada saa'idka ku dhacday boqolkiiba 80 ama 90 waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay dhalinyarta aad u saameeyeen inay dhalinyarta joogto yihiin East Africa siiba kuwa qaxootiyada maaragtay saa'idka maaragtay ugu dhibaatooday oo 22 sano waqti yar ma ahan in qaxootiyo lagu jiray maaragtay markaasaad mataqaanaa macaanka dowladnimo aad dareemi kartaa. haddana mar kasta oo dowlad la sheego maaragtay inkastoo waagaan yaraadee aan iska maqli jiro dowladaha sisaaya laakiin markaan soo weynaaday dowlad baa la sisaaya markaan maqlay aad iyo aad aan u farxanay oo xataa maaragtay hamiga uufisiiya maaragtay haddana iyo dibada aad iyo iska dhaafano dheen waddankeennii haddaan wax baranay ama jaamacadaha ka dhamaysan ama shaqooyin fiican aan ka qabano. talabaad aan kusoo xijinaya waxay tahay wallaahi jaanis fiican maaragtay tii ugu dambeysay ay tahay baa hadda muuqato
madaxweyne cusub baa lasoo doortay dowlad baa lasoo dhisayaa mataqaana madaxweynaha baa halkan hambalyo ugu dirayaa aad iyo aad maaragtay markii doorashadiisa ay dhacday Soomaaliya ummadda joogto dhan ama dadka qaxootiga ay mataqaana hamigooda saareen inay Soomaaliya ku laabtaan hase ahaatee waxaan aniga dowladda markasta dowladaha Soomaaliya ku dhaliilaa dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay boqolkiiba 90 waxay afadka garayaan ama dhibaatooyin u geystaan dhalinyarta waqtigaas dhalatay aan weligoodna dowlad arkin inkastoo aniga dowladda mataqaana dee aan ku noolaa sharcigan ku dhex noolaa waddankan Kenya aan aad ugu mahadcelinahay Kenya sida maaragtay sharafta leh dadka Soomaalida soo dhaweysay laakiin dowladda hadda dhanaysa waxaan mataqaana anigu baaqi lahaa mataqaana in dhalinyarta meel kasto ama xafiis ama meel kasta aad aragtid waxaa waaye odayaal waaweyn iyo dad waaweyn baa fadhiyo in dhalinyarta dhibaatooyin badan baa gaartay in maaragtay jaaniso badan la siiyo wacyigelin loo furo mataqaana waxa dagaalaya ama la baabiinayo ama dhibaatooyinka Soomaaliya ama badaha maraya waa dhalinyarta in dhalinyarta jaaniso la siiyo shaqooyinka loo abuuro wacyigelin maaragtay badan loo sameeyo dowladdan aad iyo aad ugu faraxsan waa tii aan Soomaaliya u laabanay aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaasi waxaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ah ee maanta aan waraysi kula yeelanay dhalinyarada SYL oo iyagu ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ka dhisan xerada qaxootiga Kakuma dareenkoodiina idiin soo gudbinayay ku aadanaa siday u jecel yihiin inay mar un arkaan Soomaaliya oo mid ah iyo dowlad Soomaaliyeed oo noqota mid hanata dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka qaxootiga ku dhaqan daafaha caalamka barnaamijkan waxaa igala qayb qaadanayay Faysal Siciid Xaaji oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada SYL ee Kakuma sidoo kale waxaa igala qayb qaadanayay Mukhtaar Xasan Maxamed oo isaguna kamid ah ururka SYL Deeq Xasan Bulxan oo isaguna kamid ah dhalinyarada Maxamed Yusuf oo isna kamid ah dhalinyarada iyo waliba Cabdiqaadir intaanu dib ugu kulmi doono barnaamijka xiga waa dhamaantood kaga tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh